ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay nin ay sheegeen inuu dhac bareer ah u geysan jiray dadka shacabka isagoo isticmaalaya mootada nooca loo yaqaan feekoonta. bayaan ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu yiri ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa saldhigga Hodana ayaa waxa ay gacanta ay ku soo dhigeen eedeysane lagu magacaabo Cabduqaadir Xuseen Abuukar oo ku eedeysan inuu dadka shacabka ka dafo taleefanada gacanta isagoo u adeegsanayo mootada nooca feekoonta loo yaqaano. eedeysanaha ayaa haatan ku jira gacanta ciidanka booliska waxaana loo gudbin doonaa maxkamadaha ku shaqada leh si sharciga loo waafajiyo ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay booliska Soomaaliya. sidoo kale bayaanka ayaa waxaa lagu sii daray ciidanka booliska Soomaaliya waxa ay xusuusinayaan cid kasta oo ku lug leh falalka noocan oo kaleeta ah in laga qaadi doono tallaabo adag oo sharciga waafaqsan. waxaana taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ay digniin ay u direen dadka dhaca kala duwan ka geysanaya magaalada caasimadda ee Muqdisho. Cabduqaadir Xuseen Abuukar ayay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ay sheegeen in uu caan ku ahaa in dadka shacabka ee isticmaalaya magaalada caasimadda ee Muqdisho wadooyinkeeda uu taleefanka uu ka dafay isagoo mootada feekoonta ku dhaweynaya qofka sidaasina uga qaadanaya taleefanka sida ay sheegeen ciidamada booliska Soomaaliya. waxa ay sheegeen in muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku daba jireen isaga iyo sidoo kale rag kale oo la sheegay in gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ay dhacay ka geysan jireen. isku soo wada duubo soo qabashada Cabduqaadir Xuseen Abuukar ayaa waxa ay imaanaysaa xilli ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaasatan ciidamada booliska Soomaaliyeed ay dadaal kala duwan ay ku bixinayaan sidii loo sugi lahaa amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho.